Argosiga ugu weynaa dunida ay qof dumar ah sameeyso iyo noocyo kamid ah xayawaanada oo si la mid ah bini'aadanka uga aarsada dhibaatada loo geysto. dood lagu ogaanayo in xayawaanada dareen ahaan ay ka aarsadaan xayawaanada kale si la mid ah bini'aadanka ayaa loo qabtay koox aqoon-yahano ah waxayna dhamaantood isku raaceen in xayawaanadu ay u dhaqmaan si la mid ah bini'aadanka xilliga aarsashada. haddaba su'aashii la weydiiyay ayaa ahayd noocyada xayawaanada ayaa aarsada, waxaana la sheegay inay yihiin xayawaanada aarsada libaaxa, shabeelka, maroodiga, geela, eeyaha, octopuska. Tiger waa nooc ka mid ah shabeellada ku nool bariga Ruushka dhulka qabow ee barafka ah. Dhererkiisu wuxuu gaarayaa 3 mitir, culeyskiisuna wuxuu gaarayaa 225 kilogram. Sanadkii 1997 nin cunto kariye ahaa oo loo yaqaan Vladimir Markov ayaa barafka dhexdiisa ku toogtay shabeel ka mid ah noocyada Tigerska la yiraahdo. wuxuu u soo qaaday gurigiisa muddo 48 saacadood kadib waxaa soo naaxay shabeelkii Tiger waxa uuna toos u soo aaday guriga Vladimir Markov oo ka samaysnaa alwaax. laakiin nasiib wanaag Vladimir Markov uu ka maqnaa guriga. muddo hal saac iyo bar kadib Vladimir Markov waxa uu ku soo laabtay guriga, laakiin nasiib darro waxa halkaas ku dilay shabeelkii hilibkiisina cunay. Argosiga ugu weynaa dunida ay qof dumar ah sameeyso. taariikhdu markay ahayd 945 miilaadiga waxaa la dilay boqol la yiraahdo Igor oo ka talinayay magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine. waxaana soo weeraray qabiil deganaa bariga Yurub oo la yiraahdo Drevland. boqorkii ayay qabteen, laba geed oo waaweyn ayay soo foorariyeen, boqorkii ayay ku dhaxireen labadii geed dhexdooda, kadibna kor ayay u sii daayeen. halkaas waxaa ku dhintay boqorkii Igor oo gabi ahaanba kala dhambalmay. xaaskiisii Olga ayaa qabatay xilka boqortinimada. muddo markii la joogay reerkii ninkeedii dilay waxay soo dileen wafdi kaas oo u socda in boqorada ay ku qanciyaan inay guursato hogaamiyahooda. waxayna doonayeen inay gabi ahaanba la wareegaan xilka boqortooyanimada. markay u yimaadeen ayagoo nool ayay aastay, kadibna fariin ayay u dirtay reerkii ka yimaadeen waxayna ku tiri raggii aad ii soo dirteen arooska ayay bulshadeena ka dhaadhicinayaan. sidaas ayaana u reebay. waxayna ka codsatay hogaamiyaha in uu u soo diro ciidamadiisa ragga ugu geesisan. markay yimaadeen ciidankii ugu geesisanaa way soo dhaweysay, weliba si wanaagsan ayaa martiqaad loogu sameeyay. waxayna ku wada xirtay qalcad, kadibna way wada gubtay iyaga oo nool. markay u dhameysay dhammaan waxgaradkii iyo geesiyaashii waxay ku duushay meeshii ay deganaayeen, go'doon ayayna gelisay. dadkii gaajo ayay u dhamaadeen, waxayna yiraahdeen waan ku baryeynaa waxa malab haysano ayaan ku siinaynaa ee go'doonka naga daa. malabka waxa uu ahaa waxa ugu muhiimsan ee laga ganacsado xilligaas. waxay tiri waa idin cafinayaa, laakiin qoys walba ha keeno 3 qolay oo ay xanaaneystaan. dadku way la yaabeen laakiin way ka aqbaleen. markii ay keeneen ciidankeedii ayaa lugaha uga soo xiray calal dab ku xiran yahay. waxa ayna gubeen guryihii iyo beerihii ku hareereysnaa. intii soo carartayna waxay amartay in la dilo, kuwa kalena la adoonsado iyada oo u aareysa ninkeeda. dumarka hadday ku jeclaadaan buuraha ayay dhabarka u saaranayaan dartaa, laakiin haddii ay ku nacaan buurahaas ayay kugu soo dirridayaan.